wanaagsan saaxiibayaal halkani waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan nahay Abuukar Cali Cadaawe ku soo dhawaada qodobada caawa warka kuwooda ugu waaweyn wabiga Shabeelle oo laga cabsi qabo in uu mar kale fatahaad ka sameeyo qaybo kamid ah gobolkan Shabeellaha Dhexe shirar mar kale la isugu yeeray madaxda maamulada dalka iyo gobolka Banaadir Puntland oo shaacisay inay bilaabayso talaalka xanuunka COVID-19 oo mar kale dalka dib ugu soo laba kacleeyay dad ay abaaro ku saameeyeen duleedka magaalada Garowe oo biyo la gaarsiiyay wasaaradda dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulan muhiim ah ka furtay magaalada Baydhabo shacabka degmada Xudur oo mar kale qaylo daan u diray dawladda Soomaaliya kulan lagu soo bandhigayay waxqabadka boqolka maalmood ee duqa gaalkacyo oo lagu qabtay magaaladaasi iyo hooyo gabar ay uga xanuunsanayso magaalada Tani Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo fariin u dirtay shacabka Soomaaliyeed qodobadaasi iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City u diyaar garooba sigiyo intaasi ka faahfaahsan marka la habeen wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaawno sida hordhaca warka aad ku daawaneyseenba wabiga Shabeelle ayaa laga cabsi qabaa in uu mar kale fatahaad ka sameeyo qaybo kamid ah gobolkan Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cali Cumar Daacad ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xubno iskugu jira maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa kormeer ku tagay qaybo kamid ah wabiga Shabeelle oo laga baqtin qaba inuu fatahaad sameeyo marka ay yimaadaan roobka laga yaabo in ay ka da'aan gudaha Soomaaliya xubnahan ayaa waxa qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan kan degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Muqtaar Baari iyo xubno kale oo kamid ah maamulka gobolka kormeerka kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Cusmaan Muqtaar Baari oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay waxyaabaha ay ku soo arkeen meelaha ay kormeerka ku sameeyeen mudane gudoomiye sidaad arkaysid maxaan ku raayto kormeerkeena naga dhiman tuulada Mareerey laba boqa ka baxsan tuulada Baaro weyn sidoo kale Baarina sida hadda soo aragtay xaafadan Kulmis haddaad arkaysid oo joogno intaas waxaa sii dheer madaxtooyada ku aadkeeda iyo maxaa la dhahay tuulada Moyko zoonkaas oo dhan waxa waaye meel khatarteeda leh waxaa noo oolin loor waxaa noo oolin difaac waxaa halis ugu jirnaa dalagyada guga bixi doono halisan ugu jirnaa haddan roob sida soo yeelayo marka waxaan leenahay hay-adaha deeqda bixiyo iyo inta ku howlan in ay wax ka qabtaan howlahan in baaq noogu jeedisada duu la yiraahdo waxa xilligan cabsi xoogan laga qabaa in dhibaato kale oo hor leh ay dhaliso fatahaada wabiga Shabeelle sanad walba oo ka sameeyo deegaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo Hiiraanba waxaana fatahaadii ugu dambeysay ay ku barakaceen dad aad u fara badan oo qaarkoodba ilaa hadda guryahooda aan tagin tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar shacabka ku dhaqan ayaa maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan uga hadlayay fatahaada ka soo laabtay magaalada Jowhar iyo deegaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo tuulooyinkaba iyadoona maamulka gobolka iyo kan degmada ay baaqi kala duwan u direen shacabkani Maxamuud Daacad raadiyaha telefishinka City Jowhar madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale shirar isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir Cumar Guux warbixintan oo dhameystiran hayno si aan baqaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa 22 bishan aynu ku guda jirno ee Maarso sanadan 2021 waxa uu ku baaqay shir lagu dhameystirayo dadaaladii iyo wada xaajoodiyadii arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeyay dawladda Federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir shirkan oo 2 maalmood soconaya ayaa waxa looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talaabooyinkii guddiga farsamada doorashooyinka ee ka soo baxay shirkii Baydhabo 15 ilaa 16 Febraayo sanadan aynu ku guda jirno 2021 kaas oo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay
heshiiskii doorashooyinka ee 17 Sebtembar sanadii 2020. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku booriyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay ahmiyad weyn siiyaan shirkan lagu dhameystirayo tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee dalka lagu jiheeyo doorasho xor iyo xalaal ah. Shirar dhowr ah oo isugu yeeray madaxweyne Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa baaqday, waxaana kulankii kan ka horeeyay oo isugu yeeray madaxweynaha, madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir shuruudo adag ku xiray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Shuruudahaasi oo ay kamid ahaayeen in shirka uu ka dhaco meel ka baxsan Villa Soomaaliya, waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyay ay yimaadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkaas oo ay ka bilaabeen kulamo kala duwan oo siyaasadeed oo ay la qaadanayeen safiirada beesha caalamka ee fadhigooda u yahay Muqdisho iyo mucaaradka Soomaaliya ee xilligan u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya. maalmo kadib madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe oo kulamo la qaatay xubnaha mucaaradka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen gole ay ugu magac dareen golaha badbaadada oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyadaasi Jubbaland iyo Puntland. Shirkan oo mar kale uu isugu yeeray madaxweyne Farmaajo ayaana la ogeyn halka uu ku dhamaan doono maadaama shirar dhowr ah oo isugu yeeray sidaan oo kale ahaa ay baaqdeen. Waxaase hadda ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho intooda badan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Cumar Guuxraadiya iyo TV-ga City, Jowhar. Puntland ayaa shaacisay inay bilaabayso talaalka xanuunka COVID-19 oo mar kale dalka dib ugu soo laba kacleeyay. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Loof ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. xilli dalka uu soo gaaray talaalka xanuunka coronavirus lagana bilaabay meelo badan oo kamid ah dalka ayaa waxaa la gaarsiiyay qaybo kamid ah maamulada dalka. Puntland oo kamid ah meelaha uu ku soo laba kacleeyay xanuunkani ayaa sheegtay in laga bilaabo doono talaalka dadka uu soo rito xanuunka. wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland oo shir jira qabtay ayaa sheegay in qaybtii ugu horeysay ee talaalka ay gaareen Puntland 16 bishani ayna ku guda jirno. waxaana uu sheegay wasiirka in lagu bilaabayo dadka ka shaqeeya xarumaha dowladda gaar ahaan shaqaalaha wasaaradaha ilaalada xabsiyada iyo kuwa kale. qaybta hore ee talaalka ilaa 40,000 qof loogu talagalay si khaasana loogu talagalay dadka loo yaqaano safka hore, shaqaalaha safka hore ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka, booliiska, macallimiinta, kuwa dugsi quraanada iyo kuwa iskuuladaba, ciidamada ka shaqeeya ilaaliya xabsiyada ama asluubta loo yaqaano, dadka elderliga ama dadka waaweyn laftooda ay ku jiraan, iyo dadka kastamada iyo ka shaqeeya meelaha dekedaha ah. dadkaas oo sababta loogu talagalay ay tahay iyaga oo wajahaya khatarta ugu badan uu leeyahay xanuunkani. talaalkaas waxa wiigan oo dhan wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay ku jirtay qorsheyntiisa iyo sidii uu si habsami leh uga bilaabmi lahaa isku mar Puntland oo dhan si dadkii loogu talagalay ay sidii loogu talagalay ay uga faa'iideystaan. waxaanu qorsheynay oo wasaaradda caafimaadka ee Puntland u qorsheysan iyadoo isticmaalaysa hay'adaha kala duwan ay khusayso dowladda Puntland oo ay ugu horeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyaduba inay si wada jir uga shaqeeyaan sidii talaalkan uu ugu dhici lahaa si habsamiya sidii loogu talagalay isla markaana uu u gaari lahaa dadkii loogu talagalay. qorshaha marka wasaaradda caafimaadka ee Puntland waxa weeye in usbuucan hadda aynu ku jirno laga shaqeeyo sidii loo diiwaan gelin lahaa dadkii talaalkan qaadan lahaa ee jooga Puntland meel kasta oo kamid ah. waxay qaadanaysaa waqti sida aad qiyaasi kartaan in macallimiinta iyo ciidamada booliiska iyo dadka kastamada iyo ciidamada asluubta iyo dadkii loogu talagalay oo dhan in la register gareeyo isla markaana goobihii loo cayimay loo sheego inay talaalka u doontaan. waxaan ugu talagalay wiigan usbuucan hadda aynu ku jirno inay taasi dhacdo annagoo isticmaalayna madaxda wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer degmo iyaguna ay kaashanayaan maamulada kale
iyo madaxda wasaaradaha aan soo sheegay ee hawsha nagala shaqeynaya waxaanu qorsheynaynaa in ka badan 30 goobood in talaalkaas ay ka qaataan dadku waa laga yaabaa maalinta ugu horeysa inay qaar dib uga dhacaan sababo farsamo awgeed laakiin qorshaha waxaa noogu jira inaanu isku mar 30 meelood iyo ka badanba ay ka bilaabmaan gaar ahaan Puntland talaalkaasi wuxuu socon doonaa muddo 10 maalmood ayuu socon doonaa waxaana aanu bilaabi doonaa launchingka ama daahfurka talaalkan waxaanu bilaabi doonaa maalinta Sabtida 27 bishan aynu ku jirno hadii la haydmo wixii maalinta ka dambeeyana waxaanu qorsheynaynaa in talaalku ilaa 10 maalmood oo uu si habsami leh u socdo waxaanu ku boorinaynaa dhammaan dadka ay khusayso ee targetka noo ah ee talaalkan inay la xiriiraan madaxda caafimaadka ee degmooyinka ay joogaan iyo gobolada ay joogaan si loo register gareeyo waxaanu rabnaa talaalkan dhala kasta waxa ku jirta in ku filan 10 qof in lagu talaalo dhaladii kastana waxa loogu talagalay marka la furo 6 saac gudahood in la isticmaalo inta ay furan tahay taa macnaheedu waxa weeye ma rabno talaalku inuu khasaaroobo waxaan rabnaa dhala kasta in siday ahayd loo isticmaalo taana waxa lagu heli karaa nidaam fiican oo registration iyo dadku inay goobihii lagu talagalay ay tagaan waxaan ku boorinaynaa dadweynaha reer Puntland targetka noo ah xilligan ugu horeeya dabcan dadweynaha intiisa kale shixnadaha dambe ee talaalka ayaa lagu talaali doonaa laakiin hadda shixnadan ugu horeysa shaqaalaha safka hore ee aan soo sheegay waxaanu aad ugu dhiirigelinaynaa inay iska register gareeyaan goobaha ugu dhow ayna la xiriiraan madaxda caafimaadka ee gobolada si aan waqti inooga lumin hawshuna ay u socoto si habsami leh talaalkuna aynu yarayno talaalka wastage-ka ama dosiska inaga khasaarobayana aynu yarayno aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsantahay xagga goobaha markaan ku horeeyo dabcan goobaha detailskoodii waa soo bandhigi doonaa haddii la haydmo laakiin waxaanu ku qaban doonaa in ka badan 30 goobood oo ka mid ah Puntland magaalooyinkeeda kala duwan goobahaas waxaan ugu talagalay waxay leeyihiin shuruudo dabcan maxaa yeelay talaalkani waa talaal inagu cusub waa talaal wadanka cusub shuruudaha waxaa ka mid ah goobaha lagu qabanayo talaalku intee bay u jiraan cusbitaalada waaweyn ee ugu dhow si haddii qofku haddii uu reaction kala kulmo loo geeyo cusbitaalka marka xisaabo badan ayaa lagu fadhiisinayaa goobaha laakiin waxaan ugu talagalay in dadku intii tamartayada ah loo dhaweeyo talaalka meel kasta ay Puntland ka joogaanba laakiin magacyada goobaha gadaal baan ka soo sheegi doonaa insha Allah tiimamka farsamada ayaa hadda gacanta ku haya oo ka shaqeynaya talaalka dambe dabcan kani waa dooskii hore qof kastana waxa looga baahan yahay inuu 2 talaal qaato oo kala dambeeya kan marka waxa weeye waa dooskii koobaad ama talaalkii koobaad ka dambena wuxuu imaan doonaa hadii la hadmaano filayna inuu yimaado 2 ilaa 3 week ka bacdi hadii la hayno qaybta ugu dambaysa ah in ay dhici karto farsamo xumo ama ay dhici karto waxyaalo in ay ka dhacaan systemka logisticada anagu ma filayno inay dhici doonaan waxaanu leenahay system adag oo ay ku shaqeyso wasaaraddu marka runtii naguma aha hadda wax issue oo aanu ka fikirayno maxaa yeelay systemka wasaaraddu waa system fadhiya haddii ahaan lahayd cold chainka haddii ahaan lahayd transportationka iyo shaqaalaha talaalka bixinayaba marka saameynta ka dhalatay xanuunkani ayaa wali ka taagan dalka waxaana ka galay dhammaan shirarkii golaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka dalka Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha telefishinka City Jawhar dad ayaa waaro ku saameeyeen duleedka magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi Puntland ayaa biyo la gaarsiiyay Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa qoysas danyara oo ku sugan duleedka magaalada Garowe oo wajahaya xaalad nololeed ayaa waxaa loo sameeyay biyo dhaamin kadib markii xoolahooda ay ka dhameeyeen abaarihii dalka ku dhuftay sanadii 2017 علماء الدين iyo qaybo kamid ah ururada bulshada magaalada Garowe ayaa biyo dhaamin u sameeyay shacabkaasi qaar kamid ah qoysaskan gaaraya 1000 qoys ayaa ugu horaan u mahad celiyay culimadan waxaan oo qabateen iyo dibaba ilaahay khayr qaban waxaan ku codsanaynaa inaan waxaan u baahanahay dadkaas halkaas ka fadhiyaan aan waxba awoodsan karin ilaahay baa awoodsan kara waxba awoodsan karin inay waxaan u baahanahay naloo qabto dadka dan yara afurka ma gadan karaan
haddeer guryo badan baa inta la ogaay in dabku ka siixsayo ay sababa haysan baa markaa loo laabtay reerka deriska wax haystaa waxooda way wada cunaano reerka deriska ku dhow baa wada qaybsadaan hadday haystaan kiilo iyo hadday jordhaa helaan wada qayb culimaatan ayaa timi oo aragtay kaamka dayaciisa dadku waa dad aan xirfad aqoon oo reer miyi ahaan jiray oo aan xirfad aqoon ay ku shaqaystaan madaxa tabarucaadka culimo u diinka sida iskood ah isugu xilqaantay ayaa sheegay inay wadaan dadaalo ku aadan sidii ay uga bixi lahaayeen xaaladda ay sababtay abaarta hadday yiraahdeen maaragtay isha biyo ma haysan hadda waxa u baahannahay waa wax aad u adag marka anigu waxaan leeyahay xamuudna waa nin sabafala kulmadiina waa nala socotaa saaki dad naga maqan ma jiraan intaana fariinta ay dadkan gaarsiinayaan waana waxaan isla fahaneen maqsuudka la fahmaa muhiim waxay u baahan yihiin waxa way dadkan maanta bishan rabaan in laga soo saaro waxay baran waxbarashada in laga saacido laana maxay yahay dawladda mas'uuliyadeeda ay ka mid tahay nabiguna buri alayhi salatu wasalaam waxaan uu nabigu alayhi salatu wasalaam wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yahay kaalmihiisa qofka u kaalmeynaya qof kale ilaahi baa isagana u kaalmeynaya sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jowhar wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kulan muhiim ah ka daafurtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Umar Guux ayaa mar kale faafahinta warkan inoo haya kulan ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ahna xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi waxaana kulanka uu yahay mid ay ka qayb galayaan ururada bulshada rayidka ee koonfur galbeed si ay aragtiyadooda ugu beeriyaan qabiil qoraalka saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka iyo bilowga qabiil qoraalka afraad ee dastuurka qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed gaar ahaan mas'uuliyiinta wasaaradda dastuurka dowlad goboleedkaasi ayaa halkaasi ka hadlay halkan maanta waxaan uga hadlaynaa arrimaha dastuurka aqrintii saddexaad marxalado badan buu dastuurka soo maray in la isfahamsiiyo oo dadka fikir fiican ay ka haystaan waa waajib umadeed haddaanu nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda arrimaha dastuurka juhdi fara badan ayaan gelinay ina mataqaanaa shacabka annaga iyo maxay ahaydey bulshada qiimaheeda kala duwan inay mataqaanaa aynu gaarsiino ayaan ku dadaalnay markii ugu horeysay ma aha 14 baa halkan noogu dambeysay bishan gudaheeda ilaahay baa mahadda iska leh marka waxaanu dadaal dheeri ah iyo dardar cusub aynu ugu jirnaa in ummadan siday u fahmi lahayd yani dastuurkeeda dastuurku waa heshiis bulshadeed si loo fahmi lahaa loo gorfeen lahaa wixii ku dhiman loogu dari lahaa wixii ziyaado ka ah loogu saari lahaa annagoo aan heshiis ku nahayn ogolnahay mataqaanaa miiska يعني Soomaali weyn aan ula soo fariisan lahayn waayo waxana dardarka wasaaradda ay wada kaas waaye waana muhiim dastuurka waxa waaye 2012 ayaa mataqaanaa ayaa la bilaabay waxa laga yaabaa in wax badan ay nooga dhiman yihiin Umar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar shacabka degmada Xudur ayaa mar kale kheyladaan u diray dawladda Soomaaliya Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman mar kale faafahinta warkan hana siiso degmada Xudur oo kamid ah degmooyinka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo xaalad macluul ah ku jirtay muddo dhowr 2 bilood ah ayaa xilligan waxa laga dareemayaa dib u soo laabasho dhanka ganacsiga ah oo ay wadaan ganacsatada degmada waxa in muddo ah go'doonsanaa degmada iyadoo dhanka dhulka aysan ka galaynin wax raashin ah dadka degmada ayaa cabashooyin kala duwan u gudbiyay taasi oo ay u direen madaxda dawladda Soomaaliya kan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana halkaasi gaaray diyaarado sida shixnada gargaarka oo loo qaybiyay dadka halkaasi ku sugan
gudoomiyaha guddiga ganacsiga degmada Xudur ayaa ka warbixiyay siduu hadda yahay xaalka ganacsi ee degmada Xudur ee gobolka Bakool anti weli go'doonkii horleylanka kiyo hayo macnaha go'doonkii ku jira markan dhabtaha tanka doran oo dadka welwelkan ka hayto waleeta xilligii roobkii la galo hay magaaladii wal raashin ayaa la male oo xilliga roobka la gal hadana soonkii hakiiga wal raashin ayaa la male dawladda dhexe iyo dawladda koonfur galbeed mudoohaneen gurmudan madaxweynaha lafta garan dadaalan suubi gurmadaha suubi waliba sheenay baawrto kolonye mudahata halbal ada 45 bir lukruug baawrto kolonyada hayti ilaa hadda wali taale xudura taal darawaliinta ku dhuumadan darawal malan hay karishbooy ma in hay ilaa laakiin darawalka hay baawrka sheenay hob 30 bir roogay 40 bir roogay macnaha roogu ay bilidki baawrto kolonyada wali bilidkaas taal raashinka mid kolonyada la sheenay 45 konton ahay hadda geeka haafkii sokor $60 loorkii sokor loorkii bure $60 saasataana lanka $60 haashidooba ma ka helaw marka su'aalo meelo teegan wali ataa ganacsatada degmada Xudur iyo shacabkan degmada Xudur iyo dadkan danyarta ee degmada Xudur intii hadda gaar ah si geerad mudaharada suubiyan eeda banaanbaxyan suubiyan walhan gurmad laakiin mid kasta banaanbax lama ka gurmado kor mid kasta meel raaisu banaanbax lama ka gurmado kor laakiin dhabka geeka Xudur yaal wali ku dorinya dhabki geerad han ka gurmadi mid geerad han gudmaday raashinka bal helay geeka raashinka male unqabateen kale la ka dari meel kasta hatta baadidi oo Xudurtu 5 kilomitir jarti 20 kilomitir jarti raashinka lendidi horti baadidi ba wal raashin aan kooy jaran markan dhibaato xoog leh gobolka ku jirta meeli mudaharaadka geerad iyo qayladaan iyo ku suubiyaan geeka ku doranta waliba aan sheegane intii gobolkan dhibaatadan taal wal ku bedela heer hata dad badan oo waliba argaha iyaal soo dirsado hay baydhowha ka Soomaaliyeey xamarha ka Soomaaliyeey heer madan beledkiiba madan maamulku la haskeero deeras hadii siyada hadii aad walba lagu bedel lan walba ku bahe meelu ka Soomaaliya korha ka Soomaaliya meelu sum deer kor deere ilaan qayladaan suubini meel kasta war deersini jaalida deersini koonfurka diyaarada wala neegshan haani dayuuradii hata leedan wal kale ilaahay abuuray yaalmale hata qorsho hata beledkan hoblan suubi fadi qarashka diyaarada siin ku biyaan isagna horkii hasaarad hata wala isbedel fadi gobolkan meeli dhibaatadii shalma geerad hay hadda ku dooriyay waliba ku codsadaane intii fiir gaar ee lanweel dad baawrtan sidii ka bahafadi sidii intii roobkan lendeerna soogna lendeerna dadka deegaankan wal ka hel fadan intii la ka dadaal sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar kulan lagu soo bandhigayay waxqabadka boqolka maalmood ee duqa magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi Zakariya Usmaan Cabdi Zakiloof ayaa markale faafahinta warkan inoo haya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen madaxda iyo bulshada deegaankaasi duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Yuusuf Jamcaale oo bulshada iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha kulankaasi lagu soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay u jeediyay waxa ay u qabteen inta ay joogeen degmadaasi sidoo kale in la sameeyay system maaliyadeed marka la leeyahay runtii waa wax badan baa ku guda jira asaga laftiisa sii kala baxaya nidaamkii maaliyadda habraaceedii iyo xaqiijintii xisaab celinta iyo systemkeedii in aada loo diyaariyey haddana loo sameeyey dhammaan in ay yeelato system lagu kaydiyo si sahlana loogala socon karo xogta maaliyadda sidoo kale waxaan qalabayn iyo dayactir guud u sameynay dhammaan xafiisyada welina baahidoodu waa taaganta faanoole fare kama qodna way runtii laakiin dadaal dheer sida arkayseen unbaa laga qabtay runtii waa dhowr iyo 10 qodob baa ku qoran halkan ismalihi dee inaan dhammaan dul istaagna waqti uma heli karayno annagoo ilaalinayna dadka meelaha kala fog iskaga yimid waxay ahayd inaan caawa khudbad dheer halkaa ku akhrino laakiin waqtigaa soo dahay oo aan qaadano marka dhammaan khudbadeennii waxaan rabaa inaan meesha runtii aan ka cudur daaranno annagoo u naxayna dadka meelaha fog iskaga yimid oo 3 sac lagu sii dhow yahay waxaa maaliyadda marka la soo koobo maaliyadda waxaa ka qoran ilaa 11 qodob
oo ah nidaamka maalmihii aan joogna aan u diyaarinay oo shaqaale leh oo isla xisaabtan leh oo habka canshuurta bilowgeedii aruurinteeda leh dhammaan systemka laga diyaariyay runtii oo aan isleeyahay wax ku ool buu yahay sidoo kale waxaan diyaarinay wax la yidhahdo TOR oo ah dhammaan madaxda degmada agaasimayaasha guddoomiyaasha xaafadaha madax qaybeedyada guddoomiyaasha laamaha fallarada iyo dhammaan xafiisyada iyo shaqaalaha dowladda hoose wixii ay ku howlgeli lahayn shaqadoodii in loo caddeeyo qof walba inuusan qof kusoo xadgudbino laba qof aysan ku wada hadleen shaqadan ma anigaa leh miyo anigaa leh wax liya ee qof walba shaqadiisa loo caddeeyo dukumiinti gacanta laga saaro sidoo kale waxaan sameynay wax la yihahdo SWOT analysis oo ah dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo in qiimeyn lagu sameeyo xaaladaha halka dowladda ay ku xoogan tahay iyo meelaha ay ka tayada yar tahay iyo caqabadaha haysta iyo fursadaha ay heli kareen intaas qiimeyn aan ku sameynay oo runtii wax badan laga taxliiliyay guul badan aan ka dhex aragnay sidoo kale profile iyo habraac nidaamka siyaasadeed ee dowladda hoose in dee meel lagu soo hagaago iyo nidaam loo raaco la helo sidoo kale qorshaha marka qorshe la diyaarin inta badan 5 sano lagu beesgareeyaa qorshihii 5 sano ee soo socota dowladda hoose degmada Gaalkacyo ay ku howlgali lahayd muddada aan jirayna waa noo cayiman tahay laakiin mar walba qorshe la diyaarinayo waxaa saldhig u ah in 5 sano lagu diyaariyo waxaan rabaa arrinta maaliyadda iyo systemkeeda haykalka maamul dibudhiska inaan intaa kaga tago dibudhiska haykalka maamul karnaa waxaan gaarnay ama waxaan qabanay muddadii aan joognay inaan annaga iyo laamaha amniga wada shaqayn buuxda aan yeelano sidoo kale waxaan isbedel iyo dib u habeyn ku sameynay amniga xarunta degmada sidoo kale waxaan adkaynay amniga kontaroolada oo runtii ahayd meesha magaaladan laga soo galayo albaab furan iska ahayd in si dhab ah la iskula xisaabtamo cidda imaanaysa iyo cidda soo galaysa in wax badan laga ogaado annagoo mar walba kaashayna laamaha amniga sidoo kale waxaa la sameeyey wadooyin furan oo badan waxaa jiray magaaladan soo gala malaayiin wada oo aan muhiim ahayn laakiin fududeynaya qofka qaswadaha ama argagixisada inay kusoo dhumaalaystaan oo si sahlan magaalada ay agabkay rabaan u soo geliyaan wadooyinkaas intii badneed waan xirnay meeshana waa ka saarnay sidoo kale waxaan hirgelinay 3 xaafadood oo ka mid ah xaafadaha magaalada in santara booliis laga helo oo booliis la geeyo aad iyo aad baan kaga mahad celinaa runtii taliyaha saldhigga xaafadaha kale runtii ayagana processkay noogu jireen oo shaqadooda waa ayagana waa gabangabo in xaafad walba booliis ay yeelato oo ka howlgala caqabadaha jira si uu uga soo dhawaado in saldhiggii kaliya ay xaafaduhu ku tiirsanaadaan qorshaha saddexaad baa u gudbaya horumarinta maaliyadda runtii waa lafdhabarta shaqo walba ama maamul walba waxa uu ku dhaqaaqayo waxa uu kow maaliyadda waxaan fariisinay systemka maaliyadeed ee dowladda hoose ay ku shaqaynayso kow laba waxaan diyaarinay qorshaha maaliyadeed ee sanadka iyo xiritaanka xisaabaadka waxaan diyaarinay warbixin la xiriirta maamulka iyo maaliyadda oo koobaysa saldhigashada waaxda maamulka iyo maaliyadda Zikriya Cusman Cabdi warbaahinta City Jawhar guud ahaan intaasi aynu ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV-gu uu ku leeyahay magaalada Tani Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa warkan idinla socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka farsamada iyo kaamirada waa saaxiibka Yuusuf Abubakar Ibrahim inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibayaal warkan kiisa xigana
waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafno